Soomaaliya waxa ay horumar ka samaysay dhismaha dawladnimada laakiin waxa ay wali la tacaalaysaa in ay wax ka qabato xagjirnimada argagixisada dagaalada sokeeye xasilooni darrada siyaasadeed iyo musuqmaasuqa sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio loona gudbiyay golaha ammaanka isagoo intaasi ku daray in caqabadahaasi ay muujinayaan jilicsanaanta horumarada ilaa hadda la gaaray kadib 30 sano oo dagaalo sokeeye weerar argagixiso iyo macluul Soomaaliya ay ka jirtay waxa ay yeelatay dawlad ku meel gaar ah sanadii 2012 ilaa hadda waxa laga shaqeynayay sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonidii laakiin Antonio ayaa sheegay in xaaladda amni ee dalka ay wali jilicsan tahay waxa uu intaasi ku daray intii u dhaxaysay bartamihii December iyo horaantii bishii May al-shabaab ay weeraro xooggan ku qaadeen xarumo ciidan saraakiil dawladda ka tirsan goobo caan ah iyo hoteelo waxa uu sheegay in bilihii Maaj iyo Abriil ay aad sare ugu kaceen weerarada ka dhacaya Muqdisho iyadoo qaraxyada lagu xiray gawaarida si maalinle ah ay u dhacayeen bishii Maaj waxa uu tilmaamay in bishaasi wadar ahaan qaraxyadii dalka oo idil ka dhacay ay gaarayeen ilaa iyo 77 qarax waxa uu sidoo kale xusay in ay kor u kaceen weerarada loo adeegsado hubiyaasha tooska ah taasi oo caddeyn u noqonaysa ayuu yiri in al-shabaab ay hormariyeen awoodda ay ku weerari karaan bartilmaameedyadooda xogayaha qaramada midoobay waxa uu carabka ku adkeeyay in ay jiraan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo iyo tiro duqeymo dhanka cirka ah oo lala beegsaday saldhigyo al-shabaab ay ku tababaranayeen kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen goobo ay iska soo abaabulaan xasan kaafi xaji maxamed